berri haddii weebeedmo waxaa la filayaa in ay rasmi ahaan xilka ula kala wareegaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha la doortay Muuse Xuseen Cabdi Muuse Biixi oo xafladaasna lagu qabto xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland qabanqaabadii ayaa socota waxaa halkaasi ku sugan wariyahayaga Maxamed Cabdi Ilig oo aan weydiiyay Maxamed ilaa maanta halkaasaad amuura ka waday waxaad u kuurgalaysay qabanqaabadu sida ay u socoto maxaa warho aad naga siin kartaa ducaale aad iyo aad baad mahadsan tahay munaasabadda diyaargarowga labada madaxweyne ee Soomaaliland madaxweynaha talada dalka ka sii degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka dhici doontaa abaar 9 subaxnimo ee maalinta berrita xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland iyadoo munaasabadaasina noqon doonta midii ugu horeysay ee nooceeda ah ee inta badan ay iskugu yimaadaan 3 madaxweyne oo talada dalka Soomaaliland la kala wareegay madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo ku wareejiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2010 iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo berrito ku wareejin doona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna dalka sii hogaamin doona 5 sanadood soo socda isla markaasina ay tahay markii ugu horeysay 3 madaxweyne ay Soomaaliland talada dalka isku wareejiyaan oo isla soo gaaraan marka munaasabadu waxay ka dhici doontaa xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland maalinta berrita haddii Allah uu diraado waxa la filayaa inay ka qayb galaan ilaa 1500 oo qof oo qaybaha kala duwan ee bulshada wufuud caalamiya wufuud heer gobola warbaahinta caalamiga iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee asxaabta qaranka sida la filayo inay ka qayb galaan mas'uuliyiintaasina marka munaasabadu ilaa haatan sida aanu ka helayno wararka rasmiga ee aanu ka helayno gudida qabanqaabada munaasabada waxa ay noo sheegayaan inay u socoto si habsami ah oo wanaagsan ilaa iyo haatan ducaale sidoo kalena wufuudda munaasabada ka qayb galaysa waxa kamid ah safiirro kala duwan oo ka kala socda beesha caalamka sida wadamada Ingiriiska, Denmark, Sweden iyo safiirro kale oo iyaguna ka socda midowga Yurub sidoo kalena waxa kamid ah safiirro ka kala socda wadamada Ethiopia, Masar iyo wadamada Jaarka waxa iman doona iyaguna oo ka qayb qaadan doona munaasabadani wafdi ka socda wadanka Djibouti oo lagu qiyaasay ilaa 15 xubnood oo rasmi ah oo hogaamin doona wasiiro sida la sheegayna wasaaradda arrimaha dibadda aanu ka helayno oo ah qaabilsan iyadoo borotokoolka soo dhaweynta mas'uuliyiinta kala duwan ee ka qayb galaya munaasabadda ee ka imanaya wadamada caalamka inay 15 xubnood oo hogaamin doona wasiirka cadaaladdu sida la sheegay uu ka mid yahay wadanka Djibouti mas'uuliyiinta ka qayb galaysa oo ay ka mid yihiin xildhibaano baarlamaanka iyo saraakiil kale oo dawladda ka tirsan iyo la taliyayaal xafiisyada kala duwan ee dalkaasi sidoo kale ilaa 5 safiir oo ka kala socda wadanka Ethiopia ayaa iyaguna ka mid ah munaasabada mas'uuliyiinta ka qayb galaysa oo kala duwan iyadoo safiiradaasina ka soo kala shaqeeyeen wadamo kala duwan iyo qaar ka mid ah isla wasiirro hore oo ka tirsan xukuumadda dalka Ethiopia oo hore uga tirsanaa jiray haatanna imika ah safiirro iyo saraakiil kale oo dawladda Ethiopia ka tirsan iyadoo wadamada Ethiopia iyo Djibouti ay Soomaaliland la leedahay xiriir gaar ah sidoo kale wadanka Kenya waxa ka socon doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadanka Masar waxa la sheegay inuu ka socdo safiir ku-xigeenka wadanka Masar oo u fadhiya dalka Djibouti oo isaguna ka mid yahay saraakiisha ka qayb galaysa wadanka Czech Republic iyo wadamada kale ee Uganda sidoo kale wadanka Imaaraadka Carabta urur goboleedka IGAD oo soo diraysa la sheegay ilaa 4 xubnood oo saraakiil sarsare ah qaramada midoobay iyo mas'uuliyiin kala duwan marka waxa la filayaa in munaasabada 1500 qof ee ka qayb galaya ay ka mid noqdaan saraakiishaasi kala duwan ee ka kala socda beesha caalamka oo intooda badan ah safiirada u fadhiya wadamadooda dalalka dibadda Soomaaliland si gaar ah u dareeya marka ilaa iyo haatan dadkaas la filayaa inay ka qayb galaan munaasabada sidoo kale waxa joogi doona madaxweyne Siilaanyo oo xilka wareejinaya madaxweyne Riyaale oo hore wareejiyay iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu haatan talada dalka la wareegaya maxamed waxaad ogtahay in rasmi ahaan berrito ay kaga dhan tahay madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumaddiisa ama wasiiradiisii shaqadii loo doortay ama loo igmaday madaxweynaha cusub waxa laga filayaa inuu la yimaado wasiirro cusub ciday doonaan ma ha noqdeen wax waran ma ka haysaa goorta uu soo saarayo ilaa dalku wasiir la'aan ma joogi kare ee Muuse uu soo bandhigayo wasiiradiisa cusub dhinaca mucaaradka saraakiisha mucaaradka oo ilaa haatan xisbiga wadani oo kale uu sheegay inaan la soo casuumin balse waxa la filayaa hadana inaanu xisbiga wadani
oo ahaa xisbigii ay filtanka adag wada galeen xisbiga talada dalka iyo kulmiye sida xoogana ay isku hayeen dhinaca doorashada inaanu ka qaybgelin sidoo kalena xisbiga mucaaradka ee ucid ay munaasabadaasi ka qayb galaan walow aan la hubin balse la filaya inay munaasabadda uu iman doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali waraabe oo isagu aqbalay doorashada iyo sidoo kaleba saraakiisha kala duwan ee xisbigaasi ucid iyadoo ilaa ay haatan aan dhinaca mucaaradka warar rasmiya telefishinka hon cable t v ka haynin inay si rasmiya uga qaybgeli doonaan balse aan isku dayi doonno wararkayga dambe inaan idiin soo gudbinno ma la og yahay cidda ka soo qaybgelaysa axsaabta mucaaridka ee somalilan ama labadii xisbi ee uu ka helay xisbigan kulmiye doorashadii iyagu inay ka soo qaybgelayaan iyo in kale cidi ma kuu sheegtay oo ma ka war doontay golaha wasiirada ee la filaya in madaxweyne muuse biixi cabdi magacaabo ayaa marka berri toole talada dalka la wareego wuxuu magacaabi doonaa sida inta badan sunnuhu ahaa ee siiraayaba hore usoo sameeyey maalinta ku xigta golaha wasiiradiisa oo la filaya inay ka koobnaadaan ilaa iyo haatan xogogaha aanu ka helino hon cable t v ilo kala duwan oo xogogaala ilaa iyo 22 wasiir oo buuxa oo ay iskugu soo ururin doona wasaaradaha kala duwan ee wadanka sidoo kalena ilaa 6-8 wasiir ku-xigeen oo noqon doona wasiir ku-xigeenada kala duwan ee ay yeelan doonto xukuumadda somalilan marka waxaa la filayaa xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo ee talada dalka ka sii degaysa oo ahayd tiradeeda golaha wasiiradu ilaa 70 wasiir inay ka yaraan doonto ilaa 50% ama 55% percentage tirada golaha wasiirada uu dib u magacaabi doono muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha la doortay markuu talada dalka la wareego isla markaasina ay ka wada tirsan yihiin isla xisbiga kulmiye oo ay ahayd qori isku dhiib xisbiga kulmiye inuu mar labaad uu talada dalka uu ku guuleysto marka filashada dadku waa inta wasaaradaha muhiimka la hadlaya waxaa ka mid ah wasaaradda madaxtooyada oo ahaan jirtay 7 sane ugu dambeeyey wasaaradda awood badan sida uu ka yeeli doono madaxweynaha cusub ee iman doonay iyadoo la filaya in la sheegayaba in wasaaraddaasi la baabiin doono oo aanay wasiir yeelan doonin sida uu ila xogogaal aanu ku hayno balse aanay rasmi oo si toosa aanay u ahayn wasaaradaha kale muhiimka waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda warfaafinta meelaha muhiimka ah ayay ka mid yihiin wasaaradaha la filayo dhinaca awood qaybsiga amaba muhiimadda gaarka ay u leeyihiin deegaanada somalilan inta badan ay iska dhex arkaan inta badan deegaanada kala duwanna laga soo xulo inay wasaaradaha muhiimka halkaasi ay inta badan kala qaataan marka wasaaradahaasaynu filaynaa iyo weliba waxyaabaha xiisaha leh wasiiradii hore ma la soo celin doonaa miyaa laga wada tegi doonaa intee leeg baa laga soo celin doonaa ma laba ma midba ma saddexba sidee bay noqon doontaa xisbiga kulmiya oo golihiisa wasiiraduna kulmiye ahaayeen golihiisa cusub ee wasiiraduna la filaya inay kulmiye noqdaan maxaa la kala yeeli doonaa wasiiro badan oo shaqeeye oo hal leh ayaa la filayaa inay noqon doonaan dadaalkoodii iyo hanaankoodii inay ku dhisaan wasiirada cusub ee soo magacaabi doono muuse biixi cabdi hon cable t v waxaad si toosa ugala socon doontaan haddii aan la awoodana maalinta berrinta munaasabadda ka dhici doonta aqalka madaxtooyada idinkoo goobihiina iska jooga qof walbaaba gurigiisa ama goobtiisa shaqada uu iska joogo inuu live ugala socdo hon cable t v facebook hon cable t v youtube iyo hon cable t v telefishinka sida tooska muraayadda aad uga daawan doontaan goob kasta iyo goor kastoo aad joogtaan iyadoo howlwadeennada hon cable laydii soo gudbin doonaa munaasabadaasi live-ka ah waa anigoo maxamed cabdi iliga oo idinku dhaafaya iyo xamse iyo tiimka kale hon cable t v wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu